dhintay dadka celi maydkii baa la kala guri waayay maxay deeyay sidaas ilmo maxay daawo loogu buufinaya indhii dadkii waa ka soo dhaceen cunihii maxay deey waa waxaa soo baxaya warar sheegaya in muhaajiriintii galayay gudaha Gariga gaar ahaan ka yimid Turkiga ee Soomaalida u badnaa in gabiyahanba ay halkaas iskaga soo noqdeen waxaa kaloo la sheegay in Soomaalida halka degan ama kuwii galay gudaha Gariga gabiyahanba halkaas dhaawacyo lagu geystay asaato warkaas ayaa war aan la xaqiijin karin walow ay jiraan ciidamada Gariga oo war culus ku haya muhaajiriinta gaaraya 30,000 ee qof ee u talaabay xadkiisa waxaana la sheegay saacadii soo socday in gabiyahanba xadka u dhaxeeya Gariga sidoo kalena iyo Turkiga halkaas uu ku xayndaaban yahay silig weyn oo dhererkiisu gaaraya 5 mitir si ay noo sheegtay gabadh ay soo duubtay codna waxay uga digtay in ay halkaas dadka tagaan maxamedow wadankii waa lagu dhintay dadka celi maydkii baa la kala guri waayay maxay deeyay sidaas ilmo maxay daawo loogu buufinaya indhii dadkii waa ka soo dhaceen cunihii maxay deey waa gowracmeen anigu meel ka hooseysa intaan maray halka igu soo gaaro ilaa markii labadii indhood way soo kudeen iga amsmaan ku gaari haddaan helo waa soo noqonaya waa soo socda haddaan gaari helo dhaxanta gariirka iska aamniyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala heede ilaahay hana gargaaro dadkii waa la waalay iyagoon qof ka gudbin babel iyo qof kale soo orod iyagoon baabelada ila qaybsayo bay hogiyo leelka kaala ila qaybso weeye iyay dadka waalin maalinta yawmal qiyaamana waa la weydiinaya dadka sida dadka u soo waalay iyay dadka waalin dadka celiya meedadkii baa la kala guri waayay dadka celiya dadka baabuur hadii la helana dadku waa soo noqonaya cid soo noqonaya 5 habeen dad baa joogay 5 habeen waxay 5 habeen niman hadiraan la fadhina waxay 5 habeen baan u joognay askartan oo siliga saaxiran siligu intee dherer leeyahay wallay ka tahay waxa weeye siligu waa 5 mitir buu kor u baxay war iska aamusa shahaata dadka abiya dadka guryooda ku jira waxaa kaloo jirta in shabagaasi gabiyahanba ay dadku googooyeen gaar ahaan Suuriyaanka oo lagu sheegay in gabigii markii hore markay imanayeen magaalada ama ay soo gariyeen gudaha Gariga ay ku hubaysnaayeen baangado kuwaas oo markii hore u soo diyaar garoobay in gabiyahanba ay silagaasi googooyaan si ay halkaas uga talaabaan waxaa la sheegay in halkaas ay ku sugan yihiin kumanaan Soomaali ah sidoo kale ay weheliyaan kumanaan kun oo Suuriyaan iyo dad kale oo ajnabi iskugu jira Turkiga ayaa in badan waxa uu gacanta ku hayay sidoo kale uu daryeel ku hayay dhammaan dadkaasi aadka u fara badan ee gudaha Gariga hadda u talaabay waxaana tirada lagu qiyaasay inta uu Turkiga hayay 3 milyan oo qof waxaana hadda u muuqata in gabiyahanba uu ku dhawaaqay Gariga dadka inuu gabiyahanba ka hor istaaga soo garista ay soo galiyaan gudaha Gariga waxaana hay'adda xuquuqda adduunka ay dhaleecaan soo jeesay Gariga ayaa la sheegay in uu si xun ula dhaqmay dadkii tahriibayaasha ah ama muhaajiriinta ah dalka gudihiisa galay waxaana soo baxay warar sheegaya in uu Gariga u adeegsaday sunta dadka kaga ilmeysiisa taas oo gabi ahaanba mamnuuc ka ah in dadka muhaajiriinta ama dadka qaxoontiga ah loo adeegsado waxaanay dawladda Turkiga ku cambaaraysay sida xun ee uu la dhaqmayo Gariga waxaana ku sheegtay inay tahay arinkaas mid gabiyahanba wax laga yaqsoodo ah Gariga ayaa ah wadan xaasid ah sida dadku sheegaan hase ahaatee dadka taariibayaasha ah ayaa ka dayrinaya xaaladda hadda ay ku sugayeen waxaana sheegeen in ay la soo darsiiso xaalad ah qabow iyo kulayl taas oo gabiyahanba aanay jirin meel gabaad ah oo ay ku harsadaan ama ay gabiyahanba galaan si kastaba ahaatee taariibayaashan ayaa ka go'an tahay inay gudaha Gariga galaan taas oo ay u muuqata in ay tahay hadafkooda koowaad waxaana rajeynayaan in toddobaadyada soo socda iyo maalmaha soo socda inay u tallaabaan gudaha Yurub halkaas oo ay nolol ka raadinayaan waxaana ka mid yihiin dadkani dad in badan ku taamayay in gudaha Yurub ay galaan halkaas oo ah meesha koowaad ee laga soo galo Yurub waad ku mahadsantihiin daawadayaal channelkeena haddii aad ku cusub tihiin fadlan subscribe saara si la sheergareeyo asxaabtiina la wadaaga badan oo ka mid ah hooy la'aan iyo raashin oo soo socdeen iyo haweenkii oo cadceed oo ama dabeelo jiraan oo aad u dhan xamo xasas ku jiraan gormeed mid adiga gormeed soo gashay ana waxay imaaday haweenkii jimciyaha soo galay waxaa jooga 2 haween Soomaalida aad aragtay inta lagta inkastoo Soomaalidu wadanka hadda oo maashan imaatay
boqolkiiba dad yar ka yihiin dadka Suuriyaanka iyo dadka badan yihiin haddana waxaa jirta dhibaatooyin oo aad u badan oo maxaa kugu kalifay inaad soo noqotid waxaa ugu kalifay haweenkii waashaan oo dabeelaha aad u jirna oo qabow badan oo dhacayo marka oo habeenka la jiifo karin oo habeenka la taagan yahay waxyaalo dab iyo waxaas lagu nool yahay isku diireemaanayo dhibaato culus oo ka jirto marka asaas ugu kaliftay inaan iska laabto waxaan go'aansanaa dib ugu laabto magaaladeeda waxbarashadeeda dib u bilaabo waa maasanta marka hadda kadib tahriib dambe isku dayayso ma waa hagaag waxaan joognaa xuduudaan joognaa Greega iyo Turkiga kule Soomaalida kala u tagi doonaa gaarigana u jeediyay Soomaali badan saaran hadda ayaa dib loo celinayaa hadda ay dib u noqonayaan kule wixii warbixin ahna dib ayaa kala soo